anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca golaha wasiirada madaxweynaha iyo dhammaan xildhibaanada halkan fadhiya waxaan tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday galabta allah u naxariistee xildhibaan axmed mayow cabdulle waxaan leenahay ilaahay jannadii ha ka waraabiyo eheliyadii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna samiri iimaan allah ka siiyo wuxuu ahaa xildhibaan axmed mayow cabdulle oo la dhihi jiray cornel ruush xildhibaan soomaaliyeed oo ka mid ah golaha shacabka shaqo badanna u soo qabtay qaranka soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay jannadii ha kugu nasiyo xildhibaanada saaxiibaday ah rag iyo dumar oo halkan jooga si gaar ah ayaan uga tacsiyeynayaa saaxiibkoodii walaalkoodii la shaqaynayay